بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. ثم الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ilaahi subxaana wa tacaala waxaan ka baryaa khayrka inuu nagu kulmiyo wada joogeenna iyo kadibna uu ina xifdiyo, ina badbaadiyo diin iyo dunyaba. masalada qur-aanka iyo qur-aanka kariimka ah iyo bisha ramadaan waxaa ka dhexeeya xiriir gaar ah oo mudan in mudnaantiisa la siiyo, dadaalkiisana lagu bixiyo. aan dhowr qodob ka soo qaado tilmaamood iyo nusuusta sharciga oo tilmaamaysa sida xiriirka gaarka uga dhexeeyo bisha ramadaan iyo kitaabka Ilaahay ee qur-aanka ah. ramadaankuna sideeday fadli gaara u leedahay, qur-aankuna sidiisuu fadli gaara u leeyahay oon ramadaan ku xirnayn. waxaa kelimadeeda ay ku saabsan tahay laakiin waa halka ay isaga yimaadaan iyo inta ay wadaagaan qaybo ka mida. waxaa koobaad ee asaaska u ah in ilaahay subxaana wa tacaala isu doortay in kitaabkiisa uu soo dejiyo bisha ramadaan. bisha ramadaan ilahay inuu soo dejiyeyna markii soomka ramadaanka inaan soonna layna farayey, aayaadka laynagu faray suuratu lbaqara waxaa ka mid ah qowluhu tacaala shahru ramadaana aladii unzila fiihi alqur'aanu hudan linnaasi wabayinaati min alhudaa waalfurqaan faman shahida minkum ashahra falyasum. bishii in la soomana waa lays amray, waxaana hordhac iyo gogolxaadh looga dhigay in kitaabkan qur-aankii waxyiga ilaahaya bishaa la soo dejiyey. qur-aankaasna hanuun iyo xaq iyo baatilka oo la kala caddeeyo uu xambaarsan yahay. haddaba kitaabka qiimaha badan ee ilaahay xifdiyey, ummadda hanuunkeeda loogu talagalay, ilaahay ummaddan inuu nabigu gaadhsiiye ugu talagalay sala allahu alayh ali wasalam, isagaana wixii mugdi ka gala inuu sharxo bayaaniyo oo la yidhi waanzalnaa ilayka dikra litubayina linnaasi maa nuzila ilayh. kitaabkaas ilaahay yidhi subxaana wa tacaala ku tilmaamay in wax walba lagu sheegay si guud ama si dadban ama si toosa ama si gaara. waxaa la soo dejiyey bisha ramadaan. bisha ramadaan weliba waxaa laga soo dejiyey habeenka ugu fadliga badan oo inaa anzalnaahu fii leylati alqadr. leylatu lqadrigaan soo dejinnay oo fadligiisu ka khayr badan min alfi shahr, 280 sano iyo weliba bilo ka fadli badan qofkaan la waafajin. bisha ramadaan baa la soo dejiyey, 10ka dambaana la soo dejiyey ee leylatulqadriga ay ku jirto. habeenada tirada isdheera hadba si loo tiriyo loo xisaababa. habeenkaas qur-aanka la soo dejiyey ee bisha ramadaan ka mid ah waxaa kaloo uu leeyahay sida ilaahay ku sheegay inaa anzalnaahu fii leylatin mubaarakatin inaa kunaa mundiriin fiiha yufraqu kullu amrin xakiim amran min cindina inaa kunaa mursiliin. waa habeenka howlsanadeedka ambiyada loo qaybiyo, malaa'igtaan leeyahay sanadka waxay qaban lahaayeen, xukunka ilaahay ay fulinayaanna xog iyo wargelin lagu siiyo. waa habeenka u fadli badan, waa habeen 10ka dambe bisha ramadaan ka mid a. habeenkaasoo qur-aanku soo degay. markii halkaa laga hadlayo laba arrimood aan baraarujiyo oo degitaanka la xiriira. midda koobaadi, ma qur-aanka keliya bisha ramadaan soo degay mise kutubtii ilaahay soo dejiyey oo dhan ambiyadii hore xataa bisha ramadaan bay ahaayeen? xadiid waxaa jira min xadiidi waathilata bni lasqac radia allahu canhu wa ardaah في مسند الإمام أحمد يا معجم الطبراني الكبير يا تفسير الطبري
iyo keyrkood rag kale ay wariyeen. xadiiskaasoo oranaya nabigeena sal ly slam wuxuu yidhi kowda bisha ramadaan yaa suxuufu ibraahim la soo dejiyey. habeenkii u horreeyey bisha ramadaan ay kow ahayd. towraadna waxaa la soo dejiyey 6 habeen kadib, markay 6 beri tagtay yaa la soo dejiyey. daahirka waxay og tahay 7dii uu soo degay. injiilna markay 13 tagtay ayaa la soo dejiyey oo u muuqata 14kii. zabuurna markay 18 tagtay ayaa la soo dejiyey oo ilaa 19 u muuqata. qur-aankana markay 24 tagtay ayaa la soo dejiyey oo ay culimmada qaar u deliishadeen 25 inay tahay leylatulqadriga. xadiidkaa nabiga laga wariyey sala allahu alayh ali wasalam culimmada qaar waa sugan yahayoo xadiid xasana wayay leeyihiin, qaarna waa daciifinayaan. nuxurka isqabadka iyo kala duwanaanshuhuna waa nin ruwaadda ka mid oo cimraan alqataan la yidhaahdo. xadiidkiisu xasan miyaa mise wuu ka hooseeya bas maandhaaf culimmada dhexdooda ka jira. ninka xaaladiisu waxay ahayd miyaa sababaya. xadiidkaasi say culimo badan qabaan waa xadiid xasan oo sugan haddii la yidhaahdo qur-aanka keliya ma ahane intii kutub ilaahay soo dejiyey oo towraad leh oo injiil leh oo zabuur leh oo suxufu ibraahim leh bisha ramadaan bay soo degtay. haddii bisha ramadaan soo wada degeen, qur-aanka ugu muhiimsan oo naasikhii kutubta dhamma gebagabeeyey ahaa, kutubtii horeo dhamma waxyiga ilaahay ee kutubta ku soo dejiyey, ambiyada ku soo dejiyey iyo bisha ramadaan xiriir gaara ka dhexeeya wey. saas darteed waxyiga ilaahay iyo kitaabka qur-aanka oo kutubtii o dhan soo khatimay, ilaahayna uu ka dhigay wamuhayminan calayhi, mid wada camimayo isagu wada xukumaya oo wixii uu yidhaahdo uu yahay hadda wixii gabagabada iyo gunaanadka ahaa, bisha ramadaan buu soo degay. masalada labaad, aayaddan waxay noo sheegeen aayaadka waxay noo sheegeen shahru ramadaana aladii unzila fiihi alqur'aan ina anzalnaahu fii leylati alqadr ina anzalnaahu fii leylatin mubaaraka. soo degitaanka aayaadka waxaa laga fahmayaa qur-aanku hal mar inuu soo degay, laakiin aayad kale oo qur-aan ah waxay inoo sheegayaan inuu in yar u soo degay. qur'aanan faraqnaahu litaqra'ahu cala annaasi calaa mukth wanazalnaahu tanziila. qur-aan baan kugu soo dejinnay, aanu qaybinnay oo soo degitaankiisii aan kala googoynay si tartiiba, si aad dadka in yarin yar ugu akhrido iyaguna u fahmaan. fii suurati alisraa wey. fii suurati alfurqaanna waqaaluu lowlaa nuzila calayhi alqur'aanu jumlatan waaxida kadalika linuhabita bihi fuhaadaka waratalnaahu tartiila. waxay yidhaahdeen ma hal mar la soo dejiya qur-aankan marba in yar imanaysa muxuu yahay. aayaadka waxay caddeeyeen qur-aanku in yarin yar buu u soo degay. kuwana waxay caddeeyeen daahirkooda marka la duuduubo qur-aanku hal mar inuu soo degay bay tilmaamayaan, ama la soo dejiyey bisha leylatulqadriga. 20 sanana soo degitaanku wuu socday. sidee baa la isu waafajinaya labadaa macno, maxay kala tilmaamayaan? culimmadu isku dayo badan baa jiray si la isu waafajinayo. laba ugu mashhuursan intaan xasuusto, midna waa ahar ibnu cabaas ka sugan, midna waa ahar camr ibnu shraaxiil ishacbi ka sugan. culimmaduna aharka ibnu cabaas bay u badan yihiin inuu yahay sida saxda. qur-aanku bisha ramadaan iyo leylatulqadriga ayaa lawxulmaxfuudka laga soo dejiyey, samaa-u dunyaa meel ahna la keenay. taasi waa midda ay tilmaamayaan shahru ramadaana aladii unzila fiihi alqur'aanu ina anzalnaahu fii leylati alqadr ina anzalnaahu fii leylati mubaaraka. soo dejintaa duuduuban ee lawxulmaxfuudkana laga keenay, samaa-u dunyaana la keenay weeye inta ay sheegayaan oo leylatulqadriga oo ramadaan ay ahayd. tan faahfaahsanna dadka kala qur'aanan faraqnaahu iyo aayaadka lamidka ahna kusoo degitaankii nabiga ay tilmaamayaan sala allahu calayh waalih wasalam. sidaas waa sida aharka ibnu cabaasa culimmaduna u badan yihiin. qowlka shacbi wuxuu odhanayaa waxaa looga jeedaa waxaa bilowday soo degitaankii qur-aanka baa leylatulqadriga bilowday oo bisha ramadaana, saasuu odhanaya. marka aayaadka wuu soo degay wuu bilowday baa laga wadaa buu yidhi. laakiin ahlu siyar wataariikh iyo maqaasidu jamaahiirtooda waxay u badan yihiin nusuululwaxyigu ramadaan waa ahaa,
laakiin 17 bay intooda badan yiraahdaan طبعا 17 laylatul qadrigu ma ahane 10ka dambe ay ku jirtaa ala alqawl as-sahih labada qowl baa loo badan yahay kan jamhuurta ibn Abbas ka sugan baana mudan oo u dhow tawfiiq iyo waafajinta laakiin kuwa ka iyo kuwa kalena waa jiraan halka su'aal baa iman karta la yiraahdo quraanka garanay xikmada ku jirta in yar inuu u soo dego nabiga ugu yimaado sallallahu alayhi wa sallam ummadana ku soo gaaro quraanka Ilaahay ku sheegay litaqra'u 'ala an-nasi 'ala muksin maxay tahay xikmada ku jirta in hal mar lawxul mahfuudka laga keenay oo samaawu dunya la keenay Badruddin az-Zarkashi al-Burhan fi 'ulum al-Qur'an markuu masalada ka hadlay wuxuu leeyahay xikmadu waa dadka ahlu dunya waa loogu talagalay in yar nagu soo dego laakiin midda hore ahlu samaawaat baa lagu ogeysiinay maadaama uu meesha samaawu dunya ku yaal beedkay malaa'iktu tawaafaysay maalin walba 70 kun oo ku soo laabanaynin ahlu samaawaadka iyo malaa'ikta la ogeysiinayay in la soo dejiyo bilaabanayo kitaabkii kutubta iyo khatimayay iyo rasuulka rususha khatimay ahlu samaawaadka wargelin iyo wanaag iyo qiimihiisa habeenkan ay yaqiineen loogu tilmaamayay oo lagu tusinayay inta ayaa inuu soo degana xikmada ku jirta ahlul ardiga iyo dadka insi iyo jinniga mukallafiinta nabiga loo soo diray sallallahu alayhi wa sallam iyo iyagana xikmadu ku jirta in loo yaryareeyo intaas hadalka ila taraara waxaanu nisri ama ay haboon tahay in la raaciye masaladii hore haddaan dib ugu soo noqday quraanka iyo bisha ramadaan waxaa ka dhaxeeyay in ilaahay isaga soo dejiyay حتى على قول الشعبي بالرمضان بو بلودي وتطبيق تمنك رمضان بعيد بليهي حلقة وحي جبريل ويجي من النبي عليه الصلاة والسلام وحراء يسوي تشوه وقول شيء اقرأ ويثنوي ما ربي قارئ إلى آخر كي حديث كي أي سودك اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ ربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم تاسي وأسطانت كوبات أسطانت اللابات نبينا صلى الله عليه وسلم بشهر رمضان عمل أهان قرآن كدب وآخر أهان قرآن كإن لقد دقيستاي بشهر رمضان بيهان جرتي في الصحيحين حديث ابن عباس رضي الله عنهما وأرضاهما وكلا النبي مركو تلمامي صلى الله عليه وسلم نبي وحوه كان أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل بشهر رمضان يمن شري فيدارسه القرآن كل لا أخرج جري بشهر رمضان سند وليبا مركب بشهر رمضان لا يرجاره جبريل بقى النبي قوي من جري صلى الله عليه وسلم قرآن كل أخرج جريه لما يرين جري قرآن كي وذا لما ينجري مركب لا جاري سند كي ودم بيس النبي صلى الله عليه وسلم لبتشر بولد ما قرآن كجبريل النبي صلى الله عليه وسلم وكان أستان وحيوته هاي سيد البشر يا سيد الملائكة يا بشهر رمضان قرآن كواد آخرين شرين بشهر رمضان بيوذا دمين شرين بشهر رمضان يوذا مراجعين شرين هل كواحد كقرأتي وحي سوك كان سيد الملائكة وجبريل يا سيد البشر ونبي محمد صلى الله عليه وسلم نبي وحي وكسو دقيي يا ملقي وحي قرآن كيني لبضي بشهر رمضان بيدب أود آخرين شرين ويسكد دقيسين شرين ومراجعين شرين sanadkii gunaanadkii iyo gabagabadii geerida nabiga calaysalaam wax yar ka hor ahaana laba jeer bay ku celiyeen halka waxaad ka garatay bisha ramadaan ha soo dega kaliya ma aha ma ha bilowda midna kaliya ma ahane si joogto ah baa quraanka nabiga iyo jibriil calayhi salaatu wassalaam ay wada akhrin jireen halkaana waa arrin tilmaamaysa bisha ramadaan si gaara quraanka in loo aqriyo in loogu dadaalo wixii ka sax khaldamay la iska saxo in si gaara loo badiyo akhriskiisa أهل الخير كو إن يسوي مادام قرآن كأقرس كيسة إن لو بهيه دعك لمرك الله جاءه النبي صلى الله عليه وسلم سجود هانت قرآن كا إن لو يستاجو وصلاة لو تكذا وهبين كل آخريه آد بالله أمانة جود هان جار هان بشهر رمضان ونبي عليه السلام مركو كبورين يي من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه الله الرمين يا جردون قفكي قيام الليل يا صلاة بدن أتكذا رمضانك ذنبك سهرنا والدافيا يا متك دم بلبا
dembigaa waxaa lagu dhaafayo dabcan dee curfiga sharcigu markii qiyaamu leyl laga hadlo waa soo jeed iyo salaad la tukanaya asaas u ah salaadana waxaa lagu tukanayaa waa qur-aankii faatixadu marka la dhammeeyo waxaa ka dambeeya la aqrinayo waa qur-aan badan saa darteed baa nabigu alai slat slam habeenadii lagu daba tukaday ee uu tukanaya taraawiixda waa kii qur-aanka dheereeyey ilaa habeenkii dambe ay yidhahdeen saxaabadu xataa khashiyana alfalaax ilaa waaf mama alfalaax qaaluu asaxuur suxuurtu inayna dhaafto waagu nagaga baryaaban ka yaabnay camal ahaanna waa u sameeyey inuu qiyaam dheer ku sameeyo guud ahaan ramadaanka gaar ahaan 10ka dambana in qur-aanka salaada habeenkii aada loogu akriyo waa ku dhiirigeliya nabiga sala allahu alay wasalam saa darteed buu nabigu markuu isbarbar dhigay oo sheegay waxa ay wadaagaan oo faa'iidada aakhira ah soonka iyo ramadaanka yaa wuxuu yihi alsiyaamu waalqur'aanu yashfacaani qur-aanka iyo soonkaba aakhara marka la tago way shafaaco qaadayaan soonku wuxuu dhahayaa rabbiyow maalintii baan oon iyo gaajo ku dilayoo cunadii iyo cabbitaankii baan u diiday qur-aankana waa soo istaago rabbiyow anna habeenkii yaan hurdada u diiday labadoodu way shafaaco qaadayaan midna maalintii raadkii uu ku lahaa qofku ka hadlayaa midna habeenkeedii raadkuu ku lahaa buu ka hadlayaa xiriirintaa la xiriiriyey ee midna maalintii yahay midna habeenkii iyo qiyaamkii calaaqad macnaha ka dhaxayso mudan dadku inay tixgelinteeda siiyaan oo qur-aankii suu kuugu shafaaco qaado markaad maalintii sooman tahay habeenkiina salaad inaad ku soo jeeda loo baahan yahay gunaanadku wakhtigoo gaaban dartii waxaa kusoo gunaanadayaa muslimiintu isagoo hanuunkii nabiga calai salatu wasalaam iyo saxaabadii la joogtay tacliintii ay ka barteen laga dhexlayo xilligaa laga soo bilaabo ilaa maalinka aan joognaayey marka bisha ramadaan soo gasho ama maalin ha noqoto ama habeen ha noqoto ama salaada ha noqoto ama fadhi ha noqotee qur-aanka si gaara in loo akhriyo oo salaadaha lagu khatimo oo 10ka dambe lagu laba goor celiyo oo qofku intaasoo jeer uu dhammeeyo fursaddan iyo jaaniskan shayaadiintu xirxiran yihiin waa sunno ay muslimiintu kala dhaxleen xilligii nabiga laga soo bilaabo sal slam ilaa xilligaa maanta aynu joogno hadiga kitaabka iyo sunnada ah ayna bareenna waa midda raadkaa muuqda inaguba inagoo yaryar inteennan qof waliba maalinka uu yaraa ee caqliyaystay dadkoo muslimkao bisha ramadaan qur-aanka dadaal gaara ku bixinaya oo si gaara loo akhrinayo oo si gaara loogu tukanayo baynu indhaha kusoo kala qaadnay sidaa un baynan insha allahu inaguna kaga dhiman doonaa jiilka iyo quruntii naga dambaysana inta ilaahay doono saan bay ku socon doonaan marka waa camal iyo dhaqan wanaagsan oo ay muslimiintu salafan can khalafin kala dhexleen wey arrintaasina ilaahay inuu waafajiyo saa sunno loo kala dhexlaay oo la isku wada dhiirigeliyo weligeedii kama imanin bilaash intaa guud baan kaga tegayaayo dee tafaasiisha hoose iyo a'imadii muslimiinta marka laga sheekeeyo wax badanood is leedahay say ku suurageli karaan 60 jeer buu qur-aanka bisha ramadaan dhammaynayay jiyo maalintii 5 jeer buu khatimi jiray qur-aanka iyo waxyaaba aad dhici kar is leedahay say ku dhici kartaa baa laga sheekayn tafaasiisha iyo faahfaahinta lama ege waxaa laga qaataa nuxurka gunaanadka ah si aad u fara badan oo gaara baa si guud oo salaada iyo si gaargaaraba qur-aanka loogu dadaali jiray akhriskiisana loo badin jiray intaa weeye nuxurka gunaanadka qaadashadiisa leh sidaa maan rajeynaya inaan ku dadaallo ilaahayna hayna waafajiyo waxaan idinku dheereeyey raalli ahaada hadal waxaa la yidhi qof badiyeyna ma wada dhihin qof soo gaabiyeyna kama wada tegin jazaakum allahu khayran wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatuh